soo dhaweynta iyo martisoorka iyo qiirada iyo wadanimada iyo xamaasadda ka muuqata aad iyo aad bay u dhalinaysaa geesinimo iyo taageero weyn oo xagga niyadda bay dhalinaysaa aad baad ugu mahadsantihiin markii horena waad idinka sugayn aye waxaan doonayaa inaan in yar isu sheegno maxaynu maanta xaggaynu maraynaa xaggaynu soconnaa xaggaynu ka nimid halgan dheer baynu soo gallay oo hubaysan halgankaa hubaysan xuquuqdeennaan ku doonaynay maantana waxaa inoo suuragala inaan halgankeenna ku wadanno innagoon xabad ridaynin marka wadahadalkii aan la gallay dawladda etoobiya iyo dawladda kililka iyo xisbiga EPRDF iyo xisbiga soomaalida ka taliya iyo hay-adaha dawladda etoobiya oo dhan is-afgarad weyn buu ku dhammaaday dadka soomaalida inay ismaamulaan oo guryahooda iyagu ka taliyaan oo maamulkooda dhistaan oo ay safka hore etoobiya ka mid ahaadaan hadday rabaanna ay aayahooda ka tashadaan oo ay gooni u go'aan hadday rabaanna si qiimo leh inay ula noolaadaan wadahadalka noo socda taa weeye kaan rabna inaad taageertaan shalay markaan dagaalka ku jirray in badan baad xabad maqlayseen soo maaha in badan baa geesi halkaa la soo dhigay soo maaha in badan baad dhiig qulqulaya aragteen maantana waxaad arki doontaan shirar iyo doodo iyo bannaanbax iyo qoraal iyo hadal baad arki doonnaa insha allahu kaasiba qayb ka mida dagaalka weeye kaan idinka rabna taageerada weeye kaan rabna xaqa dadka soomaalida inaan ku soo dhicinno jawxa waxay rabtaa dadka kow inay xafiisyadii jabhadda oo intooda badan hadda la furay in dalkoo dhan laga furo oo degmo walba iyo gobol walba iyo magaalo weyn oo kasta iyo tuulo weyn oo ama qabalo kasta in laga furo waa qodobka labaad dadka soomaalida inaan midayno oon isu keenno oo ilaa iyo hadda taageero badan aan ka haysanno laga soo bilaabo muxuu ahay gobolka daawo ilaa lagu yimaado gobolka shineyle dadka soomaalida maanta aad bay gacmaha isu haystaan jawxayna ku daba safan yihiin xaqoodii inay soo dhaxsan karaan bayna qabaan jawxana ay horseed u noqon karto taasi waa guul Soomaali oo ku soo korodhay marxaladdan dadka Soomaalida waxaa kaloo fursad u haysanaa inaan xaqeenni soo dhaxsan iyadoo nabada waan ku filannahay dooda haddaad ku filantihiin taageerada ma ku filantihiin taageerada idinku inaan soo dhicinno xaqeenni qalin iyo dood iyo hadal iyo dagaal siyaasi inaan ku soo dhicinno diyaar baan u nahay idinku diyaar ma u tihiin inaad taageerada jawxa bixisaan iimay jawxa weeye iimay jawxay ahaanaysaa waxaa ballan noo ah haddii aad midnimada dadkeenna iyo nabadgelyadeenna iyo taageerada jabhadda saddexdaa qodob haddaad la timaadaan inaad xuquuqda siyaasiga iyo xuquuqda dhaqaale iyo xuquuqda nabadgelyo iyo midda maamul iyo midda horumarineed inaga maqanba inaan miiska keenno yaan ballan qaadayna annaguna etoobiya maanta waxay maraysaa qowmiyad walba waxay rabtaa inay waxoogaa sadbursi ah hesho qowmiyad walba intay midowdo inay dhulkeeda difaacato qowmiyad walba waxay rabtaa sad dheeri ah oo awal heli jirin inay hesho innagana dadka waxaan nahay saddexaad xagga tirada dadka qolada ugu dhul weyn baan nahay qowmiyadaha etoobiya qolada ugu khayraad badan baan nahay qolada dhibka ugu badan loo geystay baan nahay sidaa daraaddeed maanta waxaan rabnaa safka ugu horreeya ee ugu karaamo badan ee ugu awood badan ee ugu horumarin badan ee xaqoodii la siiya inay dadka Soomaaliyeed noqdaan soo sidaa ma geyno saasaynu geynaa marka xaqaasaan rabnaa haddii aan leeyahay inaan soo dhicinno meel fiican buuna marahayaa wadahadalkiina ugu socdaa taageerada iyo midnimada iyo isku duubnida iyo nabadgelyo dadka Soomaaliyeed ay nagu daba istaagaan saddexda qodob baan idinka doonaynaa haddii aan la yiraahdo waxaan doonayaa saddex qodob inaan hadda shaqada saaka socota waxaad moodaa siyaasadii hore ee TPLFta iyo EPRDFta nooca gumaysiga inuu wax ka sii nool yahay waxaa jiray dhulka Soomaalida gobollo in lagu dulmiyo xuduudka waxay leeyihiin qowmiyada kale xuduudka la leeyihiin oo qabalayadooda iyo dadkooda la raaciyo ama tiradooda hoos loo dhigo idinkoo og degmooyin badan oo dad Soomaali ah in muran la geliyay in gobollada qaar lagu dulmo waxay deris leeyihiin qowmiyada kale gobolladana qaar kalena kuwa dhexda ku jirana lagu dulmiyo waxay taageersan yihiinoo waa iyana tiradoodana in la yareeyo horumarintoodana la yareey labadaa dulmi baa ka socon jiray taliskii TPLFta iyo EPRDFta labadaa dembi baa jiri jiray dadka xuduudaha jira in loo bililiqeeyo ummadaha kale dadka gudaha ku jira in la yiraahdo dawladday nacab yihiin hoos ha loo dhigo labadaa midna ma aqbalayno soo saama ma aqbalayno waxaa kale oo jirta
haddii doofaar biyo la geliyo miyuu daahiraya miyuu daahiri hal booli xalaal miyay dhali niri xalaal miyay dhali haddii aan shaarka iska bedelo cadaan miyaan ka bedelmi waxaa jira siyaasado la doonayo in la yiraahdo eegay dhalatay waan cusubnahay dambi ma lihin laakiin taariikhda dadka Soomaalida iyo habkii loogula dhaqmaayay 720 sano ee ummadaha kale loo biliqeynayay ee qabyaalada siyaasadeed shaarka loo gelinayay maanta waqtiga way dhaaftay dadka Soomaalida waa dad gacmaha haysta oo dhulku ka dhaxeeyo oo dhalasha ka dhaxayso oo hal dal ah oo hal dad ah oo hal diin leh oo hal ujeeddo leh oo hal dan leh oo hal meel ka soo jeeda hal meelana ku wada noolaan doona weeye nabadooduna mid tahay colaadooduna mid tahay khayrkooduna mid yahay sharkii soo gaarana mid yahay sidaa daraadeed siyaasado kala qaybinaya oo qaarna u dhagan ugu yihiin meelo kale qaarna u dhagan ugu yihiin dana shisheeye dadka Soomaalida kama socon doono waxaan u sheegaynaa shacbiga Soomaalida maanta inay karti u leeyihiin inay siyaasadooda dhisaan gareeyaan dadka Soomaalida mideeyaan xaq ay ku leeyihiin Ethiopia ay miiska soo saari karaan iyadoo deer u hardiyeen nin kale ku dulmeen ummadaha dariskiina la ama dulmiyayno waan la noolaanaynaa nabad baan rabnaa qowmiyadaha dariskiina la ay canfarta iyo oromada waxaan rabnaa inaan nabad kula noolaano walaalaha Soomaalida ay nagu xeeran oo dhan nabad kula noolaano laakiin inta in la xaqeena ka batanaasulayna yeeriskii hore miyaan aqbalaynaa waan diidaynaa sidaa weeye jawxana saas idinku hogaaminaysaa maanta waan faraxsanahay geedkan waxa igu dambeeyay 95 baan bari harsaday magaalada oo yar anigoo qori wata laakiin maanta anoo nabad oo calankayga wataan hoos jooga aad iyo aad baan faraxsan hadalka iga kala boodboodaya aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ogaadeen yaa xorowdo Soomaalida ha midowdo danteeda ha garato safka hore ummadaha ku soo biiraan xaqeeda ha hesho iimay ha noolaato ha hormarto ha barwaaqowdo waa mahadsantihiin